wuxuu ahaa iska hor imaadkii aan waxba laga ogeyn ee ay hoggaanka u hayeen ciidamadii Afrikaanka ahaa ee dagaalkii labaad ee adduunka. Howlgalkii xoogganaa ee loogu magac daray D-Day Landing kuma koobnayn oo keliya xulafadii Faransiiska xilligii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. Bishii Agoosto 2 bilood kadib markii uu weerarkan dhacay, waxaa la sameeyey howlgalin ballaaran si ciidamada ay uga tagaan kuwii Jarmalka. Sanad guurada dagaalkan waxaa looga dabaaldegaa dalka Faransiiska iyada oo ay kasoo qayb galaan madax ka tirsan qaaradda Afrika. Sanadkan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu soo dhaweeyey madaxda dalalka Ivory Coast iyo Guinea. Saraakiil ka tirsan dalal ay gumaysteen Faransiiska oo ka koobnaa 3 jibaar ciidamadii Faransiiska ee sanadkii 1944 ayaa guuldarro kala kulmay dagaalkii 1940. Waxaa lagu qiyaasaa in ciidamo Afrikaan ah oo ka badan 1 milyan ay ka barbar dagaalameen xulafadooda dagaalkii labaad ee adduunka. Dagaalkan oo lagu waday inuu dhaco 6 bishii Juun 1944 ayaa la hakiyey kadib markii kheyraadkii loogu talagalay la waayey. Hase yeeshee waxay noqotay lagama maarmaan kadib markii dadaallo xooggan oo ay xulafada Jarmalka ay culays hor leh ay saartay. Ujeedada ayaa ahayd in la badbaadiyo dekedaha Faransiiska ee saaran badda Mediterranean-ka, taasoo bilow u noqotay dagaallo hor leh si culays loo saaro Jarmalka. Howlgalka ayaa kala qaybsanaan ka dhex abuuray militariga. Ingiriisku wuxuu kasoo horjeestay duulaan hor leh oo Faransiiska uu qaado, balse wuxuu xoogga saaray dadaaladii uu ku doonayay in howlgal ay xulafadiisa qayb ka yihiin lagu qaado dalka Talyaaniga. Xog laga soo xigtay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgalka ay ka qayb galeen ciidamo gaarayay 50,000 oo ku dhowaad 230,000 oo ka mid ah ay ahaayeen Faransiis. Weerarka ayaa howl fududaa marka la barbar dhigo D-Day Landing, iyadoo la sheegay in markii ugu horreysay awoodda xoogagii Jarmalka la wiiqay tan iyo duulaankii dagaalkii koowaad. Weerarkii hore wuxuu qaatay 2 bilood iyo 3 asbuuc, balse howlgalkan waxaa lagu soo gabagabeeyey muddo bil ah. Antonio Bever oo ah taariikhyahan dagaalada ku takhasusay oo u dhashay dalka Britain ayaa sheegay in dhaliilaha ay yihiin in howlgal labaad loo isticmaalay kheyraad saameyn toos ah ku lahaa dagaalkii qabooba. Dooda ayaa ahayd in loo baahnaa in ay isticmaalaan midowda Sofiyeeti si ay uga hortagaan dalalka bariga Yurub, kuwaas oo la diidanaa in ay yeeshaan awood u gaara. Dadaalkii ay sameeyeen askartii kasoo jeeday Afrika ayaa ah kuwo aan weligood aan heli doonin wax qadarin ah. Ciidamadii Afrikaanka ahaa ayaa xarumihii Faransiiska laga kaxiyey dhammaadkii sanadkii 1944, balse sanadkii 2017 madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada Afrikaanka ahaa ee dagaalkii labaad ee dunida ka qayb galay in ay mudan yihiin in la siiyo magdhow.